ولا نخرج بنمشي أنا مالتي ولا توي هو لكن هاي مدية ولا هاي وضعتان وقلت مدي كشكيري جاس وسوجي دي مالتي كوب اللابين كشكيري جاس كوب اللابين وأنا سكعب بالنيو رجحان تيا مدية دي وحي وتانا نكون مالتي لك اللي راح غلب كوريا لقلني أنا قاعد أوعى رأي جسوق جاري الحمد لله وحد أساس السوي مالتي مهن هذه الرملات اللي يراهو كشكيري جاس الحمد لله هذا خسارة وتأذوا في واحد خسارة وهذا السوق جاري ساكي سوعي هراء أنا وشغيسان هنا أيام قلة توي أو ضد بوابطة أيام مقالة يسوق شيء تكامل كاشكيري هالكام أو يلا صومالي اللي هنا يدمعان إني بوان الحمد لله هذا صومالي ذي أيام إسعار ذي لوين يطوري راح هذا الأشياء هذا كدبنا بوليس كان يميدوا النجاح ولا هذا الحمد لله مقالة جميلة ويدقت markan waxay la taagan gudoomiyaha Safe Somali Community Yusuf Umar Ahmed Yusuf bal waxaad warbixin naga siisaa intaan gaarin shirkii jaraa'id maanta aad qabateen adiga iyo saraakiisha ciidamada booliiska gobolkan Western Cape gaar ahaan xaafadda Belfil bal dhacdadii maanta ka dhacday xaafadan ay shaqooyinka dhexmaray Soomaalida iyo dadka South Africaanka balka warma runtii waa maadsanta qorshe arrimahaas waa waxaan hadda sawir ahaan hadii la yiraahdo wanaagsaneen laakiin ma ahayn wax abaabulan oo loo bartilmaameedsanay Soomaalida laakiin waxay ahaaday dad banaan baxayo iska careysan oo u banaan baxayo hogaamiyalka xiran in la soo daayo meeshay socod ku soo mareen saadugtahaba maxkamadda la soo saaray ayaa meesha ku taalo waxa ugu maqaalaa in kastoo markaas aan goob joog ahayn inay codsadeen wadada gawaari maraysa in la joojiyo laakiin nasiib darro wiil Soomaaliyeed oo meesha maraya ayaa waxa ka madax adeegay in wadada ka istaago sidaas daraadeed ayaa waxa la isugu tuuray mid kamid ah dadkii banaan baxay ayuu wuxuu isugu tuuray gaarigii hore lagu qaaday dadkii oo careysan marka saas darteed ay uga daba xoomeen gaarigii soo daba kaceen gaarigii markay soo daba kaceen kaashkiiri meesha ku yeelay hortiisa gaarigii lagu baakimay kaashkiirigii ku xoomeen kabacdina waxa soo gurmaday ciidamada sida ugu maqaala ah heer waxay gaareen loo soo kiciyo ilaa heer diyaarada loo soo kaxsho si loo kontrolo waxyaabaha oo laga yaabo inay sameey karaan runtii marka taas waxay muujinaysaa dadka aan la noolnahay inay yihiin dadna jecel laakiin waxaad moodaa haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed inaad si gaar ah aad moodo inaan iska leenahay meeshan aan hadda deegaanka ku nahay runtii waxa wanaagsan in dadka si wanaagsan loola macaamilo ixtiraam iyo wanaag la dareensiyo maxaa yeelay meesha aan joogno haddii location tahay iyo haddii tahay meesha aan hadda ganacsiga ku leenahay deegaanka ku nahaba waa dalka South Africa qayb kamid ah runtii marka waxaan ka faa'iideysay fursadan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed haddii ay dhacdo sidaan oo kale dhacdo la mid ah in la ixtiraamo maxaa yeelay haddii aad wadada marayso dadka South Africaanka ah waxay ka istaagayaan dadka banaanbaxa sameeynaayo saas daraadeed marka anaguna sida ay iyagu isu xushmeynayaan si la mid ah inaan u xushmeyno ayaan ka codsanahay runtii arintaasna wax hadda dhacama jiraan waxaana dareemi kartaa sida loo kala ceyriyay in biyo lagu rusheeyo la kala ceyriyo dadkii banaanbaxa sameynayay taas waxay daliil u tahay marka dadka aan la noolnahay inay yihiin dad aad noo jecel sidoo kale waxa jiray in ciidamada booliiska ay sheegeen in dadka markay banaanbaxayeen oo ay baxayeen oo xaafadda laga saaray in qaar kamid ah Soomaalida iyo dad kale oo ajaanibta ah oo xaafadda degan in ay kor dhagaxaan iyo wax la mid ah ka soo tuureen kadibna foodo ay saas ku bilaabatay qaarkood ma jirtaa runtii arintaas waa sax way jirtaa sida ugu maqaala waxa dhacday in dhalooyinkan kooga oo qarxa in loo adeegsaday lagu tuuriyay saas daraadeed marka ciidamadu si labada dhinacba gurmad ay u yimideen iyo qoladii Soomaalida oo shoobarada sameeynaysan waa la kala ceyriyay qoladii banaanbaxayaashana sidoo kale waa la ceyriyay markaan u soo gudubno dhinaca shirka jirayd yaa ka soo qayb galay shirkada yaa qabanayay oo goobta joogay runtii shirkan wuxuu ahay shir ay maalmihii la soo dhaafay socday ay ku mideysnaayeen dhammaan taliska guud ee gobolkan aan ku noolnahay
Western Cape sida aad ogtahaba maalmihii la soo dhaafay dhacdooyin xiriira waxa dhacay oo Soomaali ay ka dambayso Soomaali kalena ay ku dhacayeen marka dhacdooyinkaas markay dhaceen waxa dhacday in si khaldan loo turjumo dad Soomaalida nacab oo ganacsigooda ka masayrsan ay si khaldan u turjumaan arrimahaas marka dadaal dheer aan sameynay taliska guud iyo qaybaha gobolka kalentood haday ahaa lahaday City of Cape Town iyo haday ahaa lahaday laamaha amaankaba wada hadalan ka sameynay waxaan cadeynaa marka dadkaas inay yihiin dad xanuunsan qof xanuunsan waxay sameeyaan aan lagu sifay karin Soomaalida marka qaybta meediyaha ayaa maanta si wada jir ahaan waxaan u sameynay press conference marka waxay soo saareen marka dadka Soomaalidu saddex qodob ay ku saleysnaayeen shirka jaraa'id qodobka koobaad wuxuu ahay inaan macnaha dhacdooyinka dhacay aan si khaldan loo turjumin qodobka labaadna wuxuu ahay dad caadistay oo police iyo Soomaali isugu jiro oo maalmihii la soo dhaafayba in ay iska furaan kiisas ay ku qaraabtaan arrimahaas sidii looga hortagi lahay oo si wada jir ah loo jooji lahay si uusan u dhicin kiis macna dara hadii qofkan ay kiis furto kiiskaas wuxuu noqonayaa ama qofkii laga furay inuu waxyeello ka soo gaarto ama qofkii furtay inuu ku soo laabto marka baaqay ka soo saarayeen qodobka saddexaadna wuxuu ahay wiilasha dhalinyarada ah ee locationkii iyagoo ku soo wareereen magaaladii yimideen ee ku biireen qolooyinkan dirbijiifta ah in arrimahaasna si wada jir aan wax iskala qabanno marka saddexdaas qaybood ayuu ka koobnay ajandaha shirka arrinta kiisaska la iska furo kale bal xogaa inoo sharax kiisaskaas qaabka yihiin yaas iska furo kiisaska sida badan waxaa dhacdo dadka Soomaalida ee gobolkan aan joogno ku nool qaar kamid ah oo la dhihi karo waa dad aan wanaagsaneyn inay iyo dumarka soo wataan ay meesha stationka iyo geeyaan ay dhahaan qofkan ayaa waxa ka cabanayso xaaskeedii hore amba saaxiibkeed marka waxa dhacayso waxay leedahay nafteeda khatar ku jirto walay bartilmaameysasho haya ilaa 5 qofood 4 qofood oo uga baqaa nafteeda waxa dhacaysa marka inay magac iska qorqortaan magacahaas markay qortaan waxa dhacaysa in dad loo soo xiro waxaana ku lug leh marka qayb kamid ah booliiska saas daraadeed marka dadka booliiska ahayna dadka ku shaqada leh ayaa dabagal ku hayaan annagana waxaan ka codsaday qof allaala qofkii dhibaataysan oo dhib ka muuqda maahane qofka in iska timaada rabta inay kiis iska furato waa ilaa inay soo marto dadka oo macnaha odayaasha iyo jaaliyada qaybaheeda kala duwan saas daraadeedna marka hadii ay naqato kiiskaas macnaha sax ah in kiiskaas laga caawiyo hadii uusan sax ahayn qofkaas la yiraahdo waanto marka dadkan kiisaska furaya ee isku soo bixisay oo police iyo Soomaaliba isugu jira ulajeedadoodu maxaa lagu tilmaamay marka runtii ulajeedadoodu wuxuu ku saleysan yahay ganacsi sida badan waxa dhacdo ay locationiska ay u aadaan booliiska qayb kamid ah in ay farqaha risaas ku qaataan ay dukaamanka dhigaan markii dukaanka dhigaan dadkii dukaanka ka shaqeynaya la yiraahdo xabadahan adan kugu qabtay lacag isii hadii kale todoban ku xira saas daraadeed marka dadkii wadada iska masaakiina waxay ku xisaabtamayaan marka hadii la xiro meesha 2500 lagu soo deeyay in lawyer loo qabto in 500 iska dhiibaan marka koox oo ganacsi ka sameynaysa waay ma santahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha Safe Somali Community Yusuf Umar Ahmed